islaamiyiintu qiyaado maanta ma u cuntamaan dadka ma hogaamin karaan caalamka maxay ku soo kordhin karaan isbedel maxaa dhici kara طريق الله مريا هلكو gaadhsiisan yahay waa mas'ala aan jeclahay inaan waxoogaa ka tilmaamo waayo masalada qiyaadada iyo in wax la maamulo la yiraahdo quraanku mesela wuxuu inoo tilmaamayaa nabi yuusuf oo leh maalka iyo xoolaha iyo waxa la dhiibo sababtuna waa maxay inni xafiidun caliim waxaan ahay mid waxna ilaalinayo ammaano leh aqoonna u leh waxa kan sida loo wado meel kale nabi muuse markay habluu rabeen in shaqo la siiyo labadii habloode uu ariga u waraabiyaa aabahoodu sheegay in fiican xoolo u waraabiyo joogo caynkan ay shaqo la rabeen inna khayra man istaajarta alqawiy alamiin baydahay cid aynu shaqaysanno oo reerka inoo maamulo xoolaha dhaqo waxa kan reerka wada waxa u fiican bay yiraahdeen alqawiy alamiin qof quwa xirfad leh wixii laga rabay farsamo u haya isla markaana ammaano leh ammaanada iyo xifdigu marna waa la wada helaa mararka qaarkoodna haddii la wada waayo sibaa loo kala horraysiiyaa shaqada markaa la rabaa noocaytay maalan haddaynu rabno duuliyo diyaaradeed shaqadaynu ka rabna waa pilot inuu noqdo duuliyo diyaaradeed ammaano iyo xirfad ama cilmi iyo ma horeeya waxa koowaad aynu ka rabnaa waxa weeyaan inuu noqdo nin farsamo yaqaan oo diyaaradda kicin kara oo intuu halkan ka kaxeeyo meel kale gaarsiin kara صح hadduu ammaano iyo diin iyo akhlaaq iyo wanaag ku darsadana waa fiicantay laakiin haddaan labada isla weyno waxaan door inuu yahay ninkani good technician walow gaal laha ahaadee cagsigu marar buu dhici karaa iyana xagga kale مثلا خصنا جال الربا ما وزير مالية للربا ما عينك كان حواليه مدة هدي لقوا آمنة يا واحد الرئيس أمانة كدبنا حرفة يا علمية نبي يوسف مركو شقاد الربا ما أورنين نبي بانهاي أما إن النبي بانهاي أما سد حووبان نبي كوات بالصلاة وأين يعقوب إسحاق إبراهيم أن النبي بان هي سدح نبينا وانكو أبتر صدا ما أورنين دوني دني كأو قروح بدن بان هي قفي جتشوك في عنو مركو مالس السوتاغو كقروح بدن ما تشيرو مش جنين نين عفيف بان هور دورسون أو دمر كي أخلاق ماذا يوحاسي كدر لكن وحو شاكتي الحفظ والعلم إنني حفيظ علم بشاكتي إذن عدكستو قيادة قبانيسا ما أمده قامينيسا waxay u baahan tahay inuu helo mu'ahilaadkii qiyaadiga ahaa ma hayaa markaasuu hoggaandad u qaban karaa qiyaadada ummadeed markaa waxay u baahan tahay sifaat alqaa'id الnaajix intaanan masalada ayana usii tallaabin markaa qaacido caamaa jirta oo dadka islaamiyiinta ay wada sheegaan oo ah mal makhraj أو ما الحل هدي الله يراهده وحلينا الكتاب والسنة إلهي الدين تيسا حلقة كتاب السنة با حلقة وصحيح وقاعدة عنك مر اللهين إلهي كتاب كيسي الدين تيسا با حلقة لكن ساشي يسوي الدين تلو حويان كيف نطبقه سين عيان الله شو طبقناه وايو لما مسألة واكلة فوقي مسألة الله يدادا العلم والمعرفة قرشدة يا قونتا ثيوريتيكالي لو برتو انت هذا بدن يدا وحا كرتب ما معتقد اما عقيدة سادرات العلماء واحدة نهاية العلم التوحيد اقونت مركا كورودا كتاب يسونا صفي عن لو برتو وحكى صوب حتى توحيد كونه صحمه نهاية العلم وتوحيد بين هذا توحيد كنا الطبيعي كما أقبله كلا جوجو ما أقبله إن دينا قاطع إنك تكتيسق وإن سيس الله قاطع لكن مركي وحو الشقت ما ضه نهاية العمل بين هذا شقد أنا ماشي يكون جبوا دواء تقوى ولا كعبس لكن تقوى وحلا مبنية
cala alistiطaacati waalqudra faاtaquu llaha ma اstaطactum. iyadu waxa ay ku salaysan tahay awood iyo karti, intaad awoodi karto. oo ilahay wuxuu yihi faاtaquu llaha ma اstaطactum. tan maxaan uga jeedaa? aan dib ka sharxo. laakiin waxaynu leenahay isbeddel bulsho in la sameeyaa, tagyiiru suluuk, 4 shay buu maraabaa la yidhaahdaa. kow, waxay yidhaahdaan waa wusuul almacluumaat, qofka inuu gaadho macluumadii aad la rabtay in wax ku bedeshid. 2, waxay yidhahdaan aliqnaac, gaadhis qura maaha inaad qancin karto oo uu caqliyan fahmo waxa kana inay sax tahay. qanac qudha waxa ma taraya. waxaa 3 bay yidhahdaan alistimaala watacaatuf, inuu xaggaaga u soo weecdo oo inuu waxaan camal ahaan u fuliyo. 4 waxay yidhahdaan almahaara. almahaara waxa weeyaan skillskii waxa kan ku fulin lahaa, sidii saxa ay ku ahayd inuu fuliyo, inuu garan karo. su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay, wadaadka soomaaliga ah ama wadaadka carabka hadhe ama wadaadka meel kale jooga ma hayaa 4 shay aynu tilmaamayno? aan mar kale dib idiin celiyo, aan muujiyo marka hore si aynu isu fahmno in faraq aad u weyn uu u dhexeeya aqoonta, macrifada iyo tatbiiqa, fulinta. weliba aan dib ugu noqdo, waxaynu qabnaa ama manhajka saxay wuxuu sheegayaa in diinta loo dabaqo sidii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo salafi lumma iyo saxaabadii ay u dabaqeen. laakiin aan su-aal isweydiino, sidee buu u dabaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam? waxay culimmadu yidhaahdaan madrasadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu dadka wax ku bare ku tareengareeyey waxay ahayd bay yidhahdaan madrasa tatbiiqiya waaqiciya, ama waxay yidhaahdaan job training bay ahayd. job training theory may u badnayn, hadalku kuma badnayn. waxa badnaa baa la yidhahaa wax practical oo la samaynayo. marka waxa dadka lagu tababaray dhacdooyin joogto ah oo siyaasiya, oo iqtisaadiya, oo bulsheed, oo dad si loo maamulo ah, oo caskariya, oo dagaal ah, oo xarbiya, oo nabad ah, oo kullu shay fi lxayaa ah ayaa training la siiyey. nebi moxamed markaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray arday, ma soo saarin, qaada buu soo saaray. qaadadu waa maxay? waa dad hoggaanka qaban kara marka la banneeyo. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay oofsaday waxaa ka soo baxay rijaal hoggaan qaban kara oo caalamka hoggaamin kara. nebiga calayhi salaatu wasalaam looma soo dirin ama lama siinin buug qoran oo uu dadka u sharxo. yacnii ilaahay subxaana wa tacaala wuu awoodayey musxafka qur'aanka ah oo qoran in nebiga loo dhiibo la ydhaho waa kan kitaabkii xagga alluu ka yimi, sharax oo dadka u sharax. haddii nebiga kitaab la siin lahaa oo uu masaajidka la fadhiisan lahaa oo uu sharxi lahaa, waxaan muran ku jirin sharaxa caalamka oo dhammi uu sharxo mid ka fiican inuu sharxi lahaa. muran kuma jiro. haddii nebiga kitaab loo keeno qur'aana oo qoran oo sidiisiiya, oo intuu malikul jibriil gacanta ka saaro yidhaahdo kan baa ilaahay kuu soo dhiibay, dadka u sharax. dabeetana uu nebigu intuu masaajidka fadhiisto uu kitaabka dhigo, waa theory, uu akhriyo, dadka u sharxo aayad kastiiyo macnaheed iyo waxa looga jeediya kan. gaaladu su-aal caynkaasiyo markay keentayna ilaahay baa ka jawaabo. alle wuxuu yidhi, wa qaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida. maa qur'aanka kan lagu soo dejiya bay yidhaahdeen kuwa gaaleed nebi moxamed isagoo kitaaboo kuusano mar qura amaa loo keeno. ilaahay baa ka jawaabay markaa. iyagu su-aashay soo dhigeen haddaad rasuul tahay maad kitaab adigoo sita timaadi, maxaad kolba u leedahay 2 aayadood baa soo degtay iyo 5 baa soo degay. ilaahay baa ka jawaabay su-aashoodiiyo rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, kadalika linuhabbita bihi fu'aadak waratalnahu tartiila walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiir.
arrinku waa saas baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ilaahay kitaab kuusan kuuma wada dhiibin ee kolba in yar baa la soo dejiyey maxaa loo soo dejiyey linuthabbita bihi fu'aadak inaanu qalbigaaga sugna baa ilaahay yidhi waratalnaahu tartiila walaa ya'tuunaka bimathal mashkilad ama tusaale ama wax lama imanayaan baa ilaahay yidhi ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira qur-aanku nebi maxamed wuxuu ugu soo degay calayhi salaatu wasalaam isagoo ah markaa problem solution xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo degay isagoo ah problem solution waxay ahayd mashkilad kasta oo dhacda waxyaa samada ka imanaya sheegaya waxani waa sax waa qaldan yihi waa gafteen waa laydin khiyaameeyey munaafiqiin baa idinku jira waa gaalo maxaa heshiiskaa u gasheen qur-aanku waxaan sababu nuzuul la akhrinayo ama axaadiista waxaa la akhriyo ee lagu tilmaamo sabudi alxadiid sababtii uu xadiidku u soo arooray iyo sababu iiraadi alxadiid laba shay oo la yidhaahday culamaa ilxadiid sheegaan midi waxa weeyaan ninkan xadiidka sheegaya saxaabigii xadiidka sheegayey sababtii ku kaliftay inuu xadiidka sheego waa sabab iiraadi alxadiid midna waxa weeyaan sabab wuruudi alxadiid nebi maxamed markuu sheegayay calayhi salaatu wasalaam sababtii uu u sheegay xadiidka kan su-aal baa la weydiiyey daraaddeed buu xadiidkan kaga jawaabay mas'ala dhacday daraaddeed buu kaga jawaabay xukun baa loola yimi daraaddii buu kaga jawaabay waa asbaabi nuzuulka qur-aanka oo kale idan waxaa la tilmaamayaa asbaabi nuzuula ama sababu wuruudi alxadiida dhammaantood waxay tilmaamayaan mushkilaadkii iyo dhacdooyinkii uu nebi moxamed la noolaa calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu iyo siday uga jawaabeen cumar iyo abibakar iyo raggii la midka ahaa markaa madraso practical ah ayay ku 23 sano iyo wax ku dhadhow 23 sannadood ayaa la barayay si dad loo hogaamiyo ayaa la barayay si loo dagaalamo ayaa la barayay haddii la gaajoodo si loo noolaado ayaa la barayay haddii la badhaadhoobo la barwaaqaysto si loo noolaado ayaa la barayay nabadgelyo si loo qaato ayaa la barayay dadka ballan si loola galo dowladaha heshiisyo sidii loola galo ayaa la barayay awoodda ay haystaan iyo طموحaadkooda fikriga waxyaabaha ay ka fakarayaan sida isu waafajin lahaayeen oo inta badan bini aadamka waxa kala xoog badan waxa madaxiisa ka guuxaya iyo intuu awoodo ayaa la barayay caqiidada iyo siyaasadda halka u dhaxaysa maxaan uga jeedaa siyaasadu waa wax ku saabsan maxaa suurtagal ah waa wax daba socota fattaqullaha mastata'tum caqaa'iduna waa waxaan loolankaba aqbalin waa waxunka aqbalin waa waxa geerida laga doorto maanta waa laga yaabaa inay dadka iska dhex gasho oo mas'ale siyaasi oo qofku qaatay inay caqaditay ama mas'ale caqadiya uu qaatay inay mas'ale siyaasi oo tanaasulaad ka aqbalo laakiin iyaga si practical loo baray masaa'ilku markay siyaasi yihiin iyo markay caqiido yihiin markuu tanaasuli karo mesela sulhu xudaybiya waa heshiisuu nabi maxamed galay calayhi salaatu wasalaam heshiiskaasi uu galay bunuudii heshiisku waxyaabay tilmaamaysaa muujinaya waxa laga tanaasuli karo qaabka looga tanaasuli karayo wuxuu heshiis buu nabigu gaale la galayay bismillaahir rahmaanir rahiim qarabu yidha waxay dhahay maya raxmaanur rahiimka haddaanu garayno ismabaynan dileene ha ku qorin bay yidhahdeen raxmaanur rahiim bismika allaahuma ugu qora buu nabigu yidhi magaca allaanu ku bilownay sidaa heshiis ku qora wuxuu nabigu yidhi kani waa wixii uu nebi moxamed uu kula heshiiyo ilaahay rasuulkiisii wuxuu kula heshiiyey qolo u kaadi bay yidhahdeen aanu rasuulku u rumaysannahay maynan isdileene magacaaga ku qoro bay yidhahdeen maxamed ibnu cabdillaahi ku qoro heshiiska waxaa ka mid ahaa wixii muslima ee gaalka ka soo baxsada ee u yimaada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu dib u celinayo iyadoo maslaxo ka weyn la ilaalinayo iyo muslimiin ka tiro badan iyo dhib ka tiro badan iyadoo la ilaalinayo in kan la yidhaahdo war adigu sabir oo ku sabir keligaa mushkiladdu ha kugu koobnaatee iskaga sabir dhibtaada waxaa ku qoraa cagsiga kii muslimka ka soo cararay xagga kala yimaada inaan muslimka lagu soo celin maadaama uu ridoobo xagga u soo baxay inaan dibba loo soo celin waxyaabahaasi waxay tilmaamayaan maxaa ah مواقف سياسية هي مكاسب سياسية في علم المفاوضات لقى رقان سنكرة هذا أقبلي كرتاينة الرقان سطو محانسي أقبلي كرينة الرقان
وسي براكتيكالا لو بري صحابة maxaa heshiis noqon kara waayo nabigu isagoo nool buu yuhuud heshiis